gobolka geeska Afrika iyo sidoo kale ma laga yaabaa dagaalkan inuu waqti uu qaato sidoo kale doorashada Soomaaliya oo iminka ay ka taagan tahay isfaham waa ayaanu wareysiga ku soo qaadan doonaa waxaan u mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga wareysigan ku soo bixiyay mudane Faarax Macalin oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani Kenya mudane ku soo dhaw Soomaali Cable. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad ma santahay Ethiopia waxa ka socota dagaal ka socda xaaladdu iminka halka ay marayso bal marka aad fiiriso sidee u aragtay horta dagaalkan waa la sugay anigu dhowr bilood markuu Abiy uu ku jiray xukunka yaan saadaaliyay oo eri hagaadhe Tigray dagaal bay soo qaadi doontaa waxaana ka dhaadhacsan in ay dagaalyahan yihiin in ay Ethiopia inteeda kala ka adkaan karaan keli shaki iyo cabsi waxay ka qabeen Soomaaliya Eritrea marka way dhacday iyagana soo qaaday iyaga saraakiishii Northern Command intay ka qabteen iyo dadkii line kula si wax shinimo oo foolxum u line all saraakiisho dhan way waxa hadda wax dhintay iyo waxaan la ogeyn sida ay inay hayaan meesha ku hayaan isay u hayaan marka ka asaga wuxuu dagaal sugay dagaalkan uu saaftarmaya si degdeg oo filanwaa oo dad badan oo aad iyo aad ahmiyad u siinayay taariikhda Ethiopia iyo taariikhda halgamada TPLF من كلورنشري EPLF Eritrean People's Liberation Front ELF من كلورنشري أو مسلمين إريتريا مدحوا هنشرين OPDO كوالا ده يجوا حزب الدمار قال لقاه جاي لكن ألفته قربيها مسا كوعيها كل الدول أو إثيوبيا دجال كسر ودي جري كلنا سوق جري جري تاريخ هذا أنا وكلي أدبر وآخرستي أدبر ولا سعودي صدق السنة فرتك السنة وصود عفني وان أجا أرجع تقرأ إن على هذا اللي شيء وسنة حوك كتير الآن تاريخ ده وحاب مركز تبع قراء كجولي يستأي قراء تقرأ محورين إثيوبيا كمحورين من قصة حيل مريم من قصة حيل مريم إثيوبيا وحكوري كحوري أو دبر كجبي أو محي عدد أقوى كويل كتري حمس يدبر وحي صور راعي إسرائيل وحي من كإريترين تو إريترين People's Liberation Front أفوركي ومارتي مدحوها أيجا السيبة TPLF وحاجة عن طول كل السن من كإريترين كه وأفوركي وككوها ملس أمريكا مدحوها أنا حلوه حنتا الله بدنا عيها بس كقصة نويين مركز الله إيجو وتجرين speaking people ما ضد كأفكار تجرين عندك واحد وهايلاند إريتريانز هي تجري ضد كتجري لكن ده بابل كي اتباست وي بالون وين لقى عبسانية ده ساعة مارتي نع بين يرسا دش لقسيه بوش بوديه هو ده بيش بس كنا ماليسا إنا يندقاليها نهين ويخايمين هايين ويدد مارتي ومد عن هوب هاي سنسي الله حسوقي قنا هايين يا صعداتي رجعوا ذي أوبدنا وين كارنا نوحي كوبا بين دقالكي حمر يكون قاعدين حاكمته oo xamar gudaheeda iyo gobolka Soomaaliya marka ay gumaysi ku haysteen ay aad iyagana oo lafta bari markeeda hore ay xalaasheed oo isku dubar asneed oo dad halgan toosan wati aheen aad baa loo jibiyay marka iyaga hadda dad badan oo dagaalyahan ma ay hayn laakiin Ethiopia xoog ku haysteen xaraan ku haysteen oo hantideeda oo dhan gobolkooda geysteen waxna dibadda geysteen umadihii mas'uuliyadii Ethiopia ay jareen marka waxa la leeyahay awoodda maadaama aqoon badan aad adigu leedahay mudane Faarax waxa la leeyahay hubkii heestaan lacag ay heestaan awoodii intii ay xilka hayeen ay awoodii dhan ay gacantooda u soo gashay marka sidee macquul ku noqon kartaa in dhaqsi lagu baabi'iyo dagaalkan ku soo afjarmo hubkii way haystaan lacagtina way haystaan gobolkana way ku nool yihiin hadis weyti waxaan laba toddobaad dhaneen inta magaalo laga qabsaday meesha maraysa hadda caasimadii hadda lagu eegaasay
laakiin iyagu dhowr meel ay duqeeyeen iyaga laftigooda duqeeyno hadii sawaariq la iska tuuray oo meel laga tush laga siiyay kuray yar oo jaamacadda ka soo baxay oo la baray sida loo ridana wuu iska ridi karaa meel uu ka ridi karaa wadi fahamtay Soomaa maxaa xamarba al-shabaab berigi hore intay mooto meel galiyaan laga arkeen way shuu qashtin jireen taa iyada dagaal ma aha taa dagaal wadan lagu ma qabsan karo laakiin waa la jabiyay waxa laga qabsaday magaalooyinka dhan baa laga qabsaday marka hubka ay soo bandhigeen oo sawaariikhda ay ka mid yihiin dhaqsimo dhamaan kara way haystaan hub badan bay hayeen hub badan inta hubka meesha u badan yahay waa la duqeeyay waa la burburiyay laakiin hub kasta hadday haystaan rag baa ku dagaalamay hubka fat cats way nimankan ku sheegay bisad buuratay weeyaan 30 sano bay wax cunayeen oo maartay meel iska joogeen oo waxna ku raaxaysanayeen dagaalyahankii bari hore lagu tilmaami jireen weligood ma ahan ma doonaysa dagaalyahan dhab ah mar kastaba kooda buuran iyo kooda cadtoon isku soo dagaalamayaan waa Soomaali baa taay oo lafta kaga jirta dhiigga kaga jirta kuwan waxay pretenders kuwan fraud bay ahayn waana laga adkaaday hadda meel kastana waa laga soo riixay buurihii waa laga qabsaday northka waa laga soo riixay southka waa laga soo riixay east waa laga soo riixay west waa laga soo riixay afarta meesha xad kala lahayn meesha Eritrea xad kala lahayn ciidamadii ay ka laayeen saraakiishi iyo Eritrea ku cararay halkaas laga soo abaabulay iyaga baa soo garaacaya hadda maanta ay haystaan oo ay maanta ay haystaan ma jirto bal dhulkoodii baa buurihii laga soo ceyriyay oo laga haystaa oo magaalooyinka la isku keenay way isdiibayaan hadda dhowr bir kadib ay isdiibi doonaan arki doontaa ma laga yaabo marka inay jabhadeeyaan marka dambe hadii xitaa buuraha hadii laga qabsan inta ku jabhadeen buuri baa laga qabsaday waad gartay Soomaa xageed ku jabhadeen dhanka amxaaradii waa laga qabsaday gabigeeda maal dhulkii ay ka xoogeen bari hore amxaarada waad fahamtay Soomaa wareede ninka Tigray sugayay inay soo noqoto ay awood yeelato will wait until doomsday ma sugo ilaa yawm al-aakhira yawm al-aakhira hadii inay soo noqoneen wala iska egay waa laga adkaaday way jabeen rag iska celiyeen weligood ba ma aheen hadda aragtay ninka dadka baabi'iyo markuu awood haysto waa fulayga geesiga dadka ma baabi'iyo ma laga yaabo marka maadaama Suudaan iyo Masar laftigooda ay ku haystaan Ethiopia wabiga Niil in garab ay ka helaan Tigraygu labadaas wadan xadki Masar waa laga haystaa intee ka soo gelinayeen garabka ay hubka ay soo gelinaysa xadka waxaan sheegay Suudaan oo Masar iyo Suudaan la leeyahay way ka soo gelin lahayd waa la haystaa intee ka soo gelinayeen wadi fahamtay Soomaa bad ma haystaan bariga oo dhan ba dhulkoodii gobolkoodii yaa meelihii ay dawladaha kale xad kala lahaayeen laga soo meelihii hatta gobollo sida Cafarta oo kale oo ay markii hore ay xoog ku haysteen waa laga haystaa kulli waa laga la wareegay marka wuu fiicnaa si fiican buu qorsheeyay ninka la dhahay dagaalkan uu dhisan yahay nimankan madaxda ahna waxa weeyaan niman iska gangsterro oo sida wax loo boobay iyo loo dhacay ummad loo baabiyo may garanayeen ayagu awood haystaan dad aan hubaysnayn sida loo laayay garanayeen marka tan hadda way u dhamaatay way jabeen jabkoodana waa dhab jabkoodana dhibkana dadkay u geysteen oo ugu badnaa geerida Soomaali bay ahayd ma gartaalkii waa niman xun oo hadday ku qabtaan way ku bahdilayaan way nasabaday ka tirtirayaan ilaa aad noqoto sidii eeyga oo kale iyaga kaba qaad oo daba socdo waad fahamtay Soomaa waxay u carbiyaan dadka si aan caadi ahayn khamriga baraan fisqiga baraan wax kastoo dhan bay sameeyaan diintayba ka saaraan dadka waad gartay Soomaa waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaali oo islaamnimo lagu ogaa markii hore markay kuwan u galeen oo calooshooda galeen qabsadeen in hadda aqeedadoodii maartay in dib loo eego ay ku haboon tahay maxaa iyaga systemkooda waxa weeyaan they have to completely destroy your sense of pride ay fahamsama qabkaada waa in la tirtiro oo gabadha lagu kufsaday inta oo baarka gal yiraahdo oo khamriga xoog lagu siiyo oo wiilka wax kasta la mariyo ma gartaa halkii in adeertii la saaro sida ay ku sameeyeen markii ay lii poliiskii Cabdiilay la oran jiray waa niman aad iyo aad u khariban ummadaas oo dhan way soo mariyeen dhibaatooyin aan ka soo kale oo miidaha kale oo kala duwan oo maxay Ethiopia way soo mariyeen Eritrea way soo mariyeen Suudaan dib badan bay u geysteen marka maanta waa payback day waxa weeyaan maalinkii waxaad guratay maantana waa lagu xisaabayaa xisaabteeda ay maanta hayaan moogta wax badan aakhira marka dhimata ayaa laga jizayna in badan adduunka lagu tusaya sida adduunka ku jiraan okay marka dad badan oo Tigray ah waxay u qaxeen Suudaan u qaxeen xorooyin badan xagga looga sameeyay UN laftigooda waxay leeyihiin in dagaalku si afdheeraada laga yaabaa qaab nuucee dawladda laga yaabo inay u la dagaalanto ma qof walba oo sheeganaya Tigrayga laga yaabo marka in la baabi'iyo
ما horta dadkan cararay hadda u sii dhabo gasho badanaa af carabiga ku hadlaan dad masaakiin ahoo Soomaalki xataa Soomaali baa ku jirta Soomaali dagaalka adduunka oo koowaad iyo labaad la geeyay xagga oo degan oo Gadaarif iyo Kasala iyo meelahaas oo xuduudka Tigreeda deganaa oo dhanka maartay Ethiopia ku jiray yaa jiraan kuwa badan oo muslimiin oo berigii Usman Digna ay dagaalami jireen Ahmadiyiinta Mahdiyiinta ay dagaalamayeen iyagana ku jiraan oo hatta aanan loo ogoleen inay qabuuro ay meelaha barkood ku yeeshaan masaajidina ka dhistaan meelaha barkood ay loo ogoleen kuwii baa horta waxa carray iyagana hadda Tigreeda asalka ahayd oo ahayd Orthodox maartay Tigreeda baalka Orthodox Ethiopian Church ka way wax ka soo carray malaha wax soo carray inta badan waa dadkii aqaliinta iyagu ku jiray amxaaradii oo ay laynayeen shacabkii Tigreeda ahaa yaa shucuubta kale oo ku dhaxnool iyaga iyay kurka ka jarayeen wada gartay Soomaa waa dhaqan fulay iska leeyahay fulay markuu ninka hubka haysto asaga iska cilnaa uu ka soo cararo maatii caruur iyo bilcaan iyo kuwaan hubaysneen buu ku laynaya marka horta kuwa soo cararay kuwaasi u badan yihiin wada gartay Soomaa laakiin qasab bay noqon doontaa dagaalka markuu sii dheeraado in cid kasta ay soo carto qaxooti meel kasta ay gashaa laakiin projectionka hadda la hayo ilaa sanadku ka dhamaaday waxa leeyahay 100,000 ka dhaneen yaa suurtagal inay soo gudbaan dagaalkan waxaan aaminsanahay inuu san qaadan doonin wax ka badan 2 toddobaad hadda maanta ka dambe haday ma qaadanayo wala adkaadin marka si fiican baa loo jabiyay dad xamili karo oo hayn karo oo sustain gareyn karo a long struggle na ma aha take it from me taariikhdooda nimanka aad u akhriya aniga waliga la socday waxa kamid ah nin sarkaal ahay oo aad looga yaqaan Soomaaliya oo General Gabriel Leira dawladdu ay sheegtay in saraakiisha la soo xirayo uu kamid yahay marka aad fiiriso aqoon nuucay aad u leedahay Gabriel aad baan u garan horta general ma cornel buu ahaa Soomaalida general u bixisay waa la bahdilay Soomaalida Tigreeda si fiican intay u jabisay yay isdibeen iyaga isduleey Nairobi joogi jira aniga waan naqanaa oo waliba maxay ahayd xumaan badan naga dhaxaysa aniga faarax markaa lahay wax khaas oo shakhsi ahaanteeda aniga asaga noo dhaxaysana ma laha laakiin suu u bahdilay ummadda Soomaaliyeed oo hilbaha wadaagno ba aad ii dhibi jirtay wala soo qaban doona ninka hogaamiyeen wuxuu ahaa operation ki xamar oo iyagana ku jabeen Soomaali markay u yartay 30,000 oo qof in lagu dilay xilligii maxkamada marka cornel buu ahaa markii ay Tigreeda soo gashay meesha la yiraahdo Addis Ababa soo gashay 91kii ay xukun qabsadeen muddo laga jooga labaali flu ahaa customs ka tributariada ciidanka customka oo jooga mooyaal ahaa marka horta waa nin on waliba Soomaaliya markuu soo dhaxgalgalahay iska darajo hoose oo in yar ilaa cornel gaari marka dambe Soomaalida laakiin waxay ka dhigtay wax weyn in badan ilaa uu ka adkidana dib uu asaga u geysan karay ma jirin inkastoo uu hogaamiyay duqeyntii wax lagu sameeyay meelaha isaga military ahaan oo xaram military joogo oo direes qaba ma ahayn nin dalka shibirka qaba oo ufuudda Soomaalida marka loo diro meel kasta la socon jiray buu ahaa shirban isku tagnay aniga iyo wasiirka anaga arrimaha dibadda bariga iyada iyo koox idil oo ka socota Soomaaliya oo Sheekh Shariifna ku jiray yaan Istanbul isku tagnay waqtigii aan meesha gudoomiye ku-xigeenka ahaa wala socday nin Soomaali oo hadli karo madaxweynaha ma hadli karo hoostu kaga jira markuu soo galay ninkii Xasan Sheekh Maxamuud Siisa lamid hoostu kaga jira maanta oo dhanba waxa alla waxay sameeyaan asaga saxaya sidaan u hadla marban dhamayna shirka Fiji aniga asaga waran muxuu ka hayaa meesha joogo muxuu ka hayaa marka awood mu leeyahay marka inaad ka wallahi kulli message-kayga waan gudbiyay markii yada ahayd nimanka Turkiinta meesha joogtana way yara dhibtay inuu nidaam xaari oo waftiga Soomaaliya dhex socdo waana la wada hadlay kulli sida hore iyo firfircoonidii iska dhigay inuu meesha maamulana hoos buu dhacay qabkiisa aad ugu dhacay wixii joogay marka yada ahayd oo meesha aan ku wada doodeynay waa on jiraan oo aan runtii Ban Ki-moon baa joogay imaaday anay Ban Ki-moon isku qaban oo kii maxay wanaag ka rabtaan Soomaaliya warka hadda wanaag ka rabtaan waxaan midan ogolaateen wax la mid ah maxaa markii hatta waxa joogay uu ahaa special envoy UN ka waxa uu ahaa
wad Cabdalla nin la oran jiray Mauritania ka yimid kii ka horeeyna wuxuu ahaa mid Tolbert la oran jiray iyo Tabman waxa moogay oo ahaa ku ka yimid Liberia adiga wadan burburay oo asagiiba burbursan nin ka yimid baa la keeni jiray Soomaaliya si loo sii burburiyo Mauritania iska baabasteen marka aduu taa waxyaabahaas way iska jirtay inkastoo kuwa markan hadda wadamada xoog ay leeyihiin markay imaadaan sidii kan hadda joogana Swan iyo wixii la midka ah iyagana danahooda khaaska State Department-ka Mareykanka ka socda meel kale kama socdo aduu waa dhib iska jira Soomaaliya laakiin marka aad tiraahdo yaana mawduuca ka bixin Tigray way jabtay Tigray nin madax noqday oo Tigray noqday oo kada ka ahaa nimanka TPLF la oran jiray مثل لسه شقية أو أي كسبدين ما طاهر مايو ولي ما طاهر مايو سومالي كسب دوار ليس أنا كل شيء يا صدق ما لقي أبا إني كوض بحان سراكيشي كم بحان إيه صح حري كل جالك أي واحد بربع للدلدلات دونا خد شك بحان كل شيء بركض للدلدلات دونا واحد سمين با ما أرتي واحد محكمة إيه يقسم كتها إيه العدالة الله مريو وهذا فهمتي صراحة وايد شبين كوا سومالي دي السوق يسي أو دبر نلف كوا هنا هيك أنا وايد شبين inta hadhayna way sii jabi doonaan ma gartay halkii marka horta waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed inay kuwaas iyo wixii la halmaalay oo dhanba ay haday ahaadeen gobolka Soomaaliya Ethiopia ma artay ay haysatay xoogga ku haysatay ilaa Cabdiilay uu xiran yahay sagaatay hada siyaasadda wax ma ka bedeli karaa marka aad fiiriso arintan hadda ka taagan Ethiopia siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya war laba sano hadda Soomaaliya waxay soo martay aan la faragelin يا فرقلي وحنا كهن أنا حق أنا قدن كان أنا إسكت ضدين حقا إني فرقليان فرقل بيننا إني فرقليان إثيوبيا كفرقلي سو قربك قدام بيس أبي سوي ماذا كلمة الحين فرماجو حيابها اللغة أذين يوحى كم إذا إن مركه أو دورشة قصة قلي إثيوبيا نعيب حدنا حدا مرول بقى أو صاحبك أودو أوتها إثيوبيا أرنت أسبال كور أنا فرح كل الله إثيوبيا والنعبة الدون كانوا والنعبة وحن نعبان وحياة تجريدي هي أمحار ذي كوريس إياك حد حكم كوعاه يستنين كل هذا الشيء ورموه حق هذه وحكستنا واللي أقول لي ما فهمت الصومة رمي صومالي مثل دشان مثل دشان ها مثل دشان ما كنت نردق الصومة مالك استوى أنا قاعد جوجن محان وكله لكن ويل حاجرة هاي دجال كهذا ماشان كسر إثيوبيا إن رمى بدن أي دلكي كسوق حيان kadibna dhibaatooyin badan ay ka dhalanayaan arin walka naga Soomaalida markii burbur xamar oo ka dhacay adduunka dhan baan u qaxnay Kenya ta soo qaxnay Soomaa horta qix waa un qax oo meel Allah meesha nabad ay jirto wali kuwa muslimiinta maadaama la isxigo oo in badan oo oromada bay asalkooda Soomaali ay tahay oo walaalaha oo muslimiin oo diin iyo wax badan aad wadaagtaan ay ku soo qaxayaan iyagoo nafka doonayaan ilaa Tigreeda haysatay iyaga markii ka horeysay Mengistu ba haystay oromada haystay waxa haystay maxay amhara haystay waad fahamtay soo wax inta ka baxsan oo adiga lagu soo qaxayo ma jirto masaakiin cararayo naf la cararayo adiga nafka doonayay dibay ku hayeen ma jirin laakiin in oromo la iska ilaaliyo waa narrative-ka ay hagaajiyeen nimanka Tigreeda oromo dibidin keeni doonta anaga waa narrative-ka laga dhaadhiciyo adiga sifay iyagana loo baabiyo adna lagu baabiyo waad gartay Soomaa way isbedeshay maanta cadawgii soo jireenka ahaa oo iyagana baabiyay adna ku baabiyay yaa maanta qadal wahya inaad ilaahina ku mahadiso garabna u noqoto oo aad halgankan hadda socdo adigana aad qaybtaada ka qaadato xurriyadna aad hesho Ethiopia ninna kaama xige aad qabsato adiga oo madaxweyne ka noqoto oo prime minister ka noqoto oo wax kasta ka noqotay meesha ku jirta arrin waxa jirtay hadal haynteedu maalmahan oo aad u badnaa qalbi dhagax oo arintiisu aad u badneed oo dawladda laftigeeda hadda ku eedeeyay gaar ahaan madaxweyne Farmaajo inuu ka dambeeyay dhibistiisii Ethiopia loo dhiibay laftigeeda bal iyada laftigeeda soo dhibaato kuma ahan dawladdii Soomaaliyeed madaxda ay ka yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walaalo horta hadalka markaad siyaasi tahay aad doonaysa inaad ka hadasha maamulka qaran lagu maamuli lahaa waxa yaryar oo basiidka oo ku teenkay in laga waantobaa loo baahan yahay waa la dhiibay qalbi dhagax
هل ديبي قابك لو ديبي ونسلا ودا garanayna qaabna aan loo dhiibay anu qaabka lagu horta ariga ninka aan aad u aaminay hadaladiisa wuxuu ahaa Cabdi Xaashi ninka la yiraahdo oo gudoomiyaha aqalka sare ah waxa looga dhaadhiciyay inuu doonayo asaga inuu tago dhakhtarna doonto daalay hadda oo halgan ku sii wadi karin aduu iskiisa waan u bixi u yiraahdana meelaha lagu dilo oo ka cabsanayay waxaa sheegtay Cabdi Xaashi iyo Farmaajaba inay dhahaan noo keenaan afkiisa ka furnay ninka inta sameynay ninka niisa markii weynaa hore u weynaa oo ahaa Sambulushe markii dambe waxa waliba hadana toorida masawaranka ku dhufashada in lagu gilgilo yaa ka sii xun waxay markii oo golaha wasiirada intay fariisteen ay soo saareen inay dawladda ku saxsaradeen ninka dhibto prime minister ki horena uu maaratay uu mas'uulka arinta iyo markaas iyada xukuumadda asaga oo madaxda ah laakiin madaxweynuhu soo wax ka moogeen wax ka ogeyn iyaga sheegi doonaan anu yar marka su'aal qof weydiiso su'aal jawaab laga soo anu masii ugu yiri asaga Farmaajo mase siday tahay sayta Ilaahay ba og si ugu yiri aniga wuxuu yiri waa la hoosaasiyay say u dhacdayna Ilaahay baa iga sareeya aniga raali kama ahayn inay saa u dhacdana diyaar uma ahayn hadda waxa igu maqaalay diibista qalbi dhagax xasan cali khayr oo aniga saaxiibkii ah inuu raali gelin ka dhiibay oo yiri hal iga raali hada waan khaldamay ummadda Soomaaliyeed horta u taala qofka ay soo dooran lahayn madaxweyne ka dhigan lahayn doorashadan waqtigeedu uu dhow yahay muddada ay ku soo hayeen xukunkana waan aragnay Ethiopia hore ma aha Ethiopia hore ma aha ta hadda ka dhacday Tigray waxa la rabay in tijaabo looga dhigo Soomaalida Ilaahay yaa ka badbaadiyay anigana aad baan u dhaxgalay waxa lagu xisaabtamay in markuu Cabdiilay meesha ka tagay Mustafa Cagjar la soo saaray oo la faytraada ma uu asaga Cabdiilayga qudhiisa ciidankiisa ay xabad ridaan marka hore waan afmeen laga dhaadhicay la dabcay wala soo qorqabto nin baa la soo qorqabtay sida Tigreed ay kolba qof soo qorqabeynaysa Cabdiilay soo qorqabteen marka dambe Cabdiilay asaga meeshuu ka baxayna inuu dagaal qaado anagana waan kula qaadi doonaa aan qaad bali danta laga lahaana burburkan hadda maanta Tigreed ku aadan inay Soomaalida ku soo aadanaato Tigreedan iska dhigto maartay wadaniyiin xukunka diyaar leh marka dambe waan hadana say oga wareejin lahaayeen ay falkeeda qabtaan okay arintas doorashooyinka Soomaaliya markaad fiirisid xilligan waqtigu waa gabagabo oo maaragtay waqtigii loogu talagalay doorashada in lagu qabto bilooyin kooban ayaa ka dhiman sidoo kale waxaa jira musharaxiin qaarkood madaxweynayaal soo noqdeen oo maalmahan shirar uga socday magaalada Muqdisho ay uga cabanayaan qaabka loo soo xulay guddiga doorashooyinka dadban ee dawladda federaalka Soomaaliya soo xushay marka aad fiiriso siday wax u socdaan bal sidee wax kula muuqdan maxaad uga booday inta horteedna Nairobi ay joogeen oo iyagana intay shir ku galiyeen oo haddana baray Imaaraadka tageen magaalada halkii ajnabi baa ku dhex jira Soomaali yani dawladeeda kamid tahay ummadda Soomaaliyeed baan u taallaa waxa weeyaan nidaam markii la hagaajiyo waa lagu qasban yahay nin kastaba laakiin nidaamkan aan hagaajin hadda maan dhigta Donald Trump shacabka Mareykanka oo dhan oo nacab asaga ayay naag Supreme Court ku jirtay bay dhimatay geeriyootay oo Ginsburg la dhahay xaq wuxuu leeyahay inuu soo doorto qof kale oo magacaabo laakiin waqti meeshii ma jirin xikmadda waxay ahayd inuu sugo ilaa doorashada ay dhamaato hadduu soo noqdo asaga magacaabo hadduu soo noqon waayna ninka kale caynka laakiin awood buu lahaa inuu asaga magacaabo adduunka oo dhan gudiyaalka si loo soo saaray anaga gudiga marka la soo saaray madaxweynaha ayaa final authority
هذا سما قفك ugu dambe oo soo saaray xulay ornay kuwa saytu yaa waa madaxweynaha process baa laakiin ay maraysaa madaxweynaha kaliya lagu madaynayo markuu soo saaray jaajki waa in mariya sanadkan aqlabiyo ku haystay way u martay hadda aqlabiyada ma heli doono laakiin fursadii lama oran karo sida anaga wax ku helayna kaliya wana laga dhigo doorashada loo macneeyo loo maartay loo meereeyo marka mucaaradkan waxay dhaheen one man one vote diyaar uma nihin waa laga soo gudbay 300 diyaar uma nihin waa laga soo gudbay 100 waa diyaar u nahay tiiba haddana loo ogolaada laga yeelay haddana in meelaha lagu soo meermeeraysto dhibkeeda iska leedahay anaa ku sheegayso malihi farmaajo waxa weeyaan waa malaa'ig oo wuxuu sameeyay waa wax aan khalad aan ku dhici karin laakiin system baa iska jira waa in la mariyo baarlamaanka hadana baarlamaanka waa 275 aqalka koran muxuu yahay waa aqalka hoose mogta alxamdulillah aqalka koran waxa weeyaan waa kirad kooban oo inta aad uga yar hadday mariyaan waa system that's how the system works laakiin gudoomiyaha aqalka saraaba ka soo horjeeda Soomaa gudoomiyaha asaga inuu gudoonsho wax buu leeyahay oge cod ma laha لكن تلو كلية هاي ما دام أنت sorry let me tell you how democracy works أنا أحكي شيء سوي وحنا شغلت أنا قدامي برلمان هاي أنا تلكم ليه ضد الهركين برلمان كرتيس ما هي لكن جودك الدورشين كان كهذا يا جودك الدورشين كان مركو الله صوم عابه وين برلمان كان لك أنا برلمان كده دونا ويتوري كنا ويفيجي كان موجن ويدي كنا عضب الله قادي هذا أنت ماشي أبدا ما ينقنيسه gudoomiyaha marka asaga hadda aanu ma garanay hadda Soomaaliya maxaa asaga banaanka laga keenay oo daa'ira kama tirsano annaga hadda waa sax gudoomiyaha baarlamaanka waa ex officio member he has no votes hatta voting right ma qabo he got my point he does not have a voting right سمعت كده nin oday oo bare oo fiican oo la leeyahay xikmad qabo judge ahaan jiray military general ahaan jiray aadii nin caankaas oo kale ayaa la geeyay siyaasadda khabiir ku ahaa laakiin xurriyadda lagu yiqiinay أنا قدومي كين برنامج أنا ما قدوميها ما هيستعد مركز قدوميها ماشان حير أجي أو صومالي أو ميل اسكوي مالي أو صومالي حير كي لودي يجيلي مركز كلا دعلو كلا بيحجري معها سيستم ديمقراطية قاطع أو قرن كونستيوشن بجرا وذكرت سوا مركز النظام كسدو هاون هلو هرجلي اللي هو في التفاعترين يا سك هصومك عابو هلا كان برنامج أنت دونا كتوران ويتوري وين أنت بيسوق قدين انت waa sharci ilaahay inta laga qaadi kara marka tala kuma lahan meel ay ka bilaabato anaga waxay ka bilaabataa baarlamaanka madaxweynaha ku dhamaata meelaha barkoodna madaxweynaha ayaa magacaaba baarlamaanka lagu soo celiyay hadana si alla sida ay u noqotay iyaga systemkooda ku shaqeeyay tala kama bixin karo gudoomiyaha wuxuu gudaanshaa he chairs the session of the parliament upper house ka soo chair gareeya waa bara heblow hadal fariisa istaag doodan baa la keenay doodan hal la gudbiyay way dhamaatay shaqadiisa waa mid ayada laakiin sida loo maamulo wixii malaha hatta hadduu arkay inay wax ay si xun u socoto oo ay fiicnaan oo ceenkaas oo kale nidaamka u arko oo aqalka asaga ka mid ka aha uu yiraahdo aqalkan aniga aan kamid ahay maaha si xalaal ma shaqeynayo sida the only thing he has وشرعه هاستو أنه أنتوا رزان قريبا اسكتك استقلال أنتوا السماء قف كلا دورتان ممبرينتا دورتان أصيغا مدحوينها ما دورن قدامي أقل كسرة ممبرينتا دورتان marka adi marka lagu doortay baraha aad tahay kaliya gudoonsha aan baa lagu keenay ma ogi maamulka aad qabanaysa maxay tahay waad fahamtay soo marka waxa loo baahan yahay in la fahmo say waxan u shaqeeyaan ما aha sheeka Soomaali oo jaahil kasta oo waxba aan garanayno waxa uga qorneenba parliamentary systems ka the different parliamentary systems oo 15 meelaha noqonayaan jaamacadda laga akhristaa oo waa la fahmaa oo waa la arkaa oo magartalkii electoral system ka la akhristaa laba system oo isku mid adduunka ma jiraan wada garsama marka systemku soo u shaqeynaa baad u shaqeyn ma ogi wax adiga jeebkaada kala soo baxdo kuma wadi kartid qaar kamid ah waxay sheegeen musharaxiinta inay walaac badan ay ka qabaan arrintaani waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goob fagaara su'aalo lagu weydiinayay ka hadlayay
waxyaabaha hadalka uu soo qaato waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidamada NISA aan ku dhameeyay Fahad Yaasiin oo sheegay in uu yahay milkiilaha dawladda ama awood badan uu ku leeyahay dawladda adu ma aaminsan tahay ama ma qabtaa in madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin uu ka awood badan yahay madaxweyne Farmaajo xasha ka dhig adiga dawladda marka is hagaajisay hadda Uhuru hadduu ka dhageysanahay Muraade masuu ka dhageysanahay xaaskiisa dhigeysaa uu sheegay ninka la soo doortay madaxweynaha isagu yahay nin uu dhageystay shaqo sak ninku doona ha dhageysto ninku xil u dhibtay uu dhageysan adiga xilku mu dhiban xukunka adiga ma hayst xukunka taladiisa iyo sida loo kala maamulay sida loo meereynay sida waxa iskale dadka la soo doortay ninku soo doorto prime minister ka dhigtay ha dhageysto yuusan dhageysanin ha la socdo la socon maxaa shaqo ka hadi adiga laakiin awooda la hadlay awooda ma sheegay hadi awooda dawladda rasmiga ninka la soo doorto madaxweyne ninku la tashay ninku xil u dhiiban adiga maxaa shaqo ka dhig ما أسيا الله صدرت مدحوينا أديك ولا جاتي هذا الله ما مولرته no you have no legitimacy أسيا أسكالي هادو حاس كيس تلاك قادر هادو برايم مينستر كيس تلاك قادر هادو وزير تلاك قادر هادو صاحب كي كلا أو هادو تلاك قادر على كيف هذا أنا أقول تلاك قادر مراد يقول له تلاك قادر وحل وما عبي أنجل ده بالمراد وأنا أتصاحب أنا يقول الله مده جاي متوري ويبديه marka ninku waliba mid walba waxa weeyaan PA-giisa ahaan weeyaan personal assistant kiis waa chief of staff soo dirta saamela kaasa la dhakaasa aad wala taliyaa baa liiraa ninku doono ayuu madaxweynaha la tashanaya adiga ma aha inaad Bill Clinton xaaskiisa Hillary Clinton was the best advisor to Bill Clinton waad karta sama marka ninka xilka loo dhibay shalay markuu Xasan Sheekh Maxamuud uu doorashada uu sameeyay guddiga doorashada magacaabay شيخ شريف بركي ودورشة سمينا لقى قاضي يا ادم قاعد قد دورشة اسا مقعابي كان ما انت محل لوجا بدلي لكن واحد اللي اسكو فاهم دغيسو ما جيرتو ان اللي اسكو فاهم هذا ما هبو قديغا دورشة اودي اولها اسغا شلي oo la qaybsanin ma gartaalkii cid kale la qaybsan karto waa baarlamaanka haday dib jirto baarlamaanka koor imaanayso oranaysa kan iyo barama noqon karaan binaanka loo tuuro qaab nooc la isugu soo dhawaan karaa marka waqtiga maadaama uu nidaamka iyo dhaqanka la soo waday oo lagu soo mariyay ninka la yiraahdo Sheekh Shariif uu soo maray oo uu soo maray ninka la yiraahdo Ahmed ninka la yiraahdo magaciisa Xasan uu soo maray oo kuwii ka horeeyay ay soo mareen kulli waa in la mariyo maxaa la oranayaa kan fiiri bari baan anaga damcana anaga mucaarad inaan mooy u diidno inuu xukunka uu qabsado waxaan ogaanay haddaan doorasho la galno tartan aan la galno inaan ka badin karin marka waxaan damcay inaan ka saarno gabigiisa waqtiga waxaan dhahnay sharci baan keenay aan leenahay 70 jir ka badan ma istaagay madaxweyne hay famso baarlamaanka keen ana ku jira mucaaradka marka ana way dhibtay kama yeelin mana saxiixin mid laakiin meeshii loo badnaa mucaaradka waxa leeyahay sidan kalimaan way ugu hortay karna baarlamaanka waa diiday والله تقول age limit you can't put an age limit إلهي وحو قدر دادك بري يقول أولينا age limit كإن لقي مانت إنه رايلا ودينغا أو كمديه وأصاق هدو دورشي أنا ندن بيسو سو يستاقي أصاق تضغاطن كرو رافي مركز شرعي نظام يدقن السياسات هلا هجاجي قدي هلا هجاجي أنا عنكو صباحا كي أنا عنكو صباحي لكن هلا هجاجي ما سوان كرتا ما يا حال ربا nidaamkii waxa lagu soo waday adna qayb aad ka ahayd in la sameeyo nidaamkaasito ninka ku soo baxa nasiibkiisa weeyaan ahlan wasahlan saa madaxweyne sidoo kale waxa jiray mudane farax Fahad Yaasiin dhageysana ku sheegay waxaan ku sheegay dhageyso Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibkii waa aniga Sheekh Shariif saaxiibkii waa waxaan ku sheegay labadaba ninkii bari Fahad Yaasiin baa فهد ياسين oo Nairobi la joogo oo wiil yar oo iska fariid ah oo u shaqeeyay Al-Jazeera iyo ahaa ninka 2006 iyada oo maxaakiimta ninka lagu arka loo haystay inuu Usaama bin Laden u yahay inta aniga uga imaaday oo wada hadalnay waan u kacnay meesha diyaarad xamar siyaasiyiintan Soomaalida hadda ordayso xamartay oo ka soo noqonay oo inta arkay oo madaxda arkay martay waqtiga iyada waxaan xasuustaa markaan ka imaaday nin siyaasi oo baarlamaanka ku jira magaciisa ma sheegay yaan wadada Nairobi ana maray hebel aan iri saastuu arkay buu cagaha iska sidaa ord kumana
محمد ولا دبا سعودي بيقولها سي اي iyo mawzaadka maxay Israa'iil kuwi Kenya oo dhan baa daba socdaan meel cudurro raba inuu halaagiis saas loo gacabsan jiray arrimaha Soomaaliya ninkii bari asagoo Xasan Sheekh Maxamed ninkii bari asagoo Xasan Sheekh Maxamed inta uu keenay oo 5 jeer meelaha aan wada qadaynay asagoo u taagan oo u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya Fahad Yaasiin buu wada garsama aniga farmaajo Fahad isma kaan barin waxaan isku baranay transit anigoo maray Amsterdam asoo inta ka baxay anigoo transatlantic ka imaaday American ka imaaday masku baranay oo saacadii bar 2 saacadood meel ku sheekaysanayay oo mid kasta flightkiisa sugay marka horta dadkan dad wada soo shaqeynayay bay ahaayeen wax baana ka dhaadhacsan nin kasta fursad markuu helay sidii la rabay inuu wax u maareeyo ma usan u maareynin way ka wareegtay way ka wareegtay shalay marka Xasan Sheekh Maxamed marka la diray marka darada la dagaalamay Sheekh Shariif kulli waxay jireen dhanka Allah ninka Sheekh Shariif ka hor imaado ee diyaar u ahaayeen Xasan Sheekh Maxamed marka la dagaalamay Sheekh Shariif qudhiisa wuxuu garab u ahaa farmaajo inuu Xasan Sheekh Maxamed ka baxo biir nin kastaba ha noqday laakiin Xasan meesha dhaafay hadda maanta tii eeg baad moodaa inay iyagana iska dhaadhicinayaan marka hadda kan ku jiro yaa la isku tagay waad fahamtay Soomaa لكن أفكار إيه أمد الصوماليات هرمرك هذه حسابتك عينك هاي هي آياتين كذا هي ما أنت ماشي الله مرهي شلي ماشي اللي مرهي هرت ماشي كم جيران مركان أنا مركان صار كله نظام بنجعل هاي إن لو السعودية مويه أو فوضى سنديدنا مويه ما كل شيء علم هاي هاد نك سو استاجي نك جوش سيت وهلا ما كليه وحنجعل هاي نن صومالي أو حلال أو musuqmaasuqna shaqo ku leheen wadanina wadamaha jiraanka iyo wadan kasta oo dhan aniga Kenya maanay inay Kenya ay intay Soomaaliya muqooniso itaal daradeedii iyo burburka ku dhacay intay ka faa'iideysato Soomaali maartay ay si burburiso diyaarumi waa umad aan hilba wadaagno wadan kale oo ajnabi ahna diyaarumi inuu sameeyo marka waxa Ilaahay ka bariyaya oo markasta ku shaqeynayna hadba warilahay mid fiican Soomaali Allah u keeno oo qabo ما قلت لك وانا العقب حبك كفلين ما حتى مين العقب اسمه قليان هنتي بان دوني داران لسنه ما هي ضدنا وان هوغامينيا ما نينك ددك هوغامينيا waxa weeyaan inuu ka taga taariikh buu rabaa ninkaan diyaar ah inuu taariikh ka tago xaq uma laha inuu umad u hogaamiyo wadi fahamtay soo marka horta kii fiicnaa ilaahay maxay ahayd Soomaalida haddana u fudeeyo oo ku soo gala kaasna maartay ayaan anaga ilaahay u baryanaa inuu maartay Soomaaliya marxaladeeda wax weyn ka bedelo bas waxa la wixii hadda la bedelay wanaag aad loo sii kobciyo insha Allah aad u mahadsan tahay qaybihii dambe warayskeen ayaan maraynaa su'aal waxa jirto oo qaasan rabay inaan ku weydiiyo waxa la leeyahay sababta Faarax Macalin oo u taageerayo dawladda waxa kamid in qaar kamid ehelkiisa ay ka shaqeeyaan xafiisyada ugu sarsareysa dalka Soomaaliya sababtaasna uu taageerayo arintaas maxaa ka jira horta aan ku sheegayso gabadhan dhalay ka shaqeysa madaxtooyada Soomaaliya ka shaqeysa gabadha waxa lagu recruit gareeyay competitively aqoonteeda ayaa lagu qaatay aqoontooda waxa ku shaqeeyaan cadaan baa ku shaqeeyaan madow Kenya baalki wadamo kale ka imaada ku shaqeeyaan Soomaali Kenya oo fara badan baa ku shaqeeyaan cid aanan ku 70,000 oo expatriates ya Soomaaliya ka shaqeeyaan wada gartay Sooma 70,000 ya ka shaqeeyaan Azerbaijan iyo waxa dagaalamay maaldoota Armenia wiilaan dhalay waa xagga Azerbaijan ka shaqeeya oo u weyn maxay ahayd hay'ad weyn maartay shaqo weyn ka haya markastaba Azerbaijan ay dhulkooda soo ceshatay aniga garab baan u ahaa ama wiilka sababtiisa garab ugu hay gartaalkii wada fantay Soomaa oo markii la qoray shaqada waa yar Faarax iyo wacanka nin garanay aanan jirin oo si iskiisa ku helay mid kale aan ku sheegay gabadha lacagta ay ku qaadanaysay inta meesha ay ka shaqeynaysay iyo lacagta hadda ay ka qaadatay xagga inta ay ka qaadanaysay baa ka badnayd maxay tahay laba jibaan amal ahayd maxay tahay marka danta goonida ugu jirto danta goonida ugu jirto waxa weeyaan ilaahay baa wuxuu waafajiyay in ay hilbaheeda u heeliso isana ku sheegi inay hilbaheeda u heeliso waana ku soo barbaariyay ayada kelima aha caruurta aan dhalay oo dhan baa wadani ma gartaalkii yaa wadani bayaan ku oranay laakiin Soomaalinimada ku weentay
okay marka maqaab Soomaaliyeed oo ay ku tagaysaa wallahi iyadoo waxay u gashay markii inay Soomaaliyeed wax u qabato u gashay اختيارkeedana ku gashay aniga ma qasbin ayada kelina kama shaqeyn wiil aan dhalay baa ka shaqeyn jiray hadda koor ku kaloon dhalay baa u shaqeyn jiray program iyaga ku saabsan u shaqeeya hadaba oo lawyer weyn dadkii aniga aan dhalay ilaahay baa mahaddeeda iska leh aqoon fiican bay leeyihiin si fiican waxaan u soo baray agarso wiil dhakhtar baan aniga dhalay oo dadka ugu fiican ENT surgery wadankan oo qoysaska ladan oo dhanba wadankan lagu yeero marka loo yiraahdo hebel kaale maanta daawe laakiin waxa aniga hadda iga qosaynayso ma jirto ku awoodda dawladda leeban ku sheegay marka horta waxa weeyaan ilaahay ubadka dhan aan la noo hagaajiyo dad hilbahooda wax u galaan han noqdaan diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda anaga dalka anaga waa Kenya kuwa nolol dhashayna anfacaan inuu ilaahay ka dhigaan markasta waan ku alla baryaa haday dhacdani waan ku mahadinaya laakiin hadda wax ku saabsan taa aniga oo siyaasadeeda ee mas wax kaga korin mas ka bedeli ma jirto waxa ay qabatay heerada ay Soomaaliya u sameysana taariikhda sheegi doontaa in maanta kuma sheegay okay wada gaartay Soomaa annaga yaraanka ah oo halka joognay yaa inaga Soomaaliya martii idinka xagga joogteen dadka xagga isku batay oo xagga ay fiiraan Soomaaliya xagga ay fiiraan Soomaaliya xagga ay fiiraan Soomaaliya way ku yartahay hilbaa Soomaalida u helinta way ku yartahay annaga Kenyaanka ah oo inta joognay oo yaraanka ah ayaa yaa saan u xanuunsanaan u danqanayna arinta Soomaaliyeed uma danqadaan Soomaalida iyada tiray wax kasta isku jabisay aad u maasan tahay ugu dambeyntii maxay tahay taladaada ku aadan Soomaaliya xilligan doorasho ku soo socoto halka kala taagan yahay waad aragtaa musharaxiintii shirar yeelanayaan dawladdii laftigeeda halkaas taagan tahay taladaada ugu dambaysan maxay tahay adeero ninka markuu dantiisa garanayn shakhsiga markuu dantiisa garanayn allaga inkastoo af Soomaaliga oo meel kastaba uu yahay oo daba dhilif amiil yar uu yahay futoolna waan dhahnaa daafaanana waan dhahnaa erey waa erey Soomaali oo daafaana Soomaali daafaanimada laga daayay ereysa aan ku sheegay wanka ku heelinayo adiga garabka ku iyo ninka cadawgaada horta kala garo markaad Soomaali tahay hadda ka hor waxa dhacday qisaad dhacday aan ku sheegay laba qisooyin baa dhacday oo yaab igu dileen ruushka ayaa rabay inuu Soomaalida aad wax ula qabto dhinaciisa aniga aan sheegay hadda marka dawladda Soomaaliya ku jira anigana waan u waloolay aad iyo aad war xiriir la sameeysta war galbeed iyo carab way inaga tashteen kuwaas ayaa saaxiibo raadinaya taariikh hore idin dhaxaysay Ethiopia ana galbeed ay gashay cadaawadna way idin dhaxaysaa waa markuu meel joogay la qabsadaan iri markaas ay dhahan waan siinayna wax alla waxaad u baahantiin hub wax alla waxaad ma aragtay anagana UN sanctions waxaan ka dan leena malaha waan idin garab qabanayna sidii aan u tirtiri lahayn al-shabaab khayraadkiina saan u soo saari lahayn garab aan iguna laakiin no keeno official hay request no way maad ayagoo Ethiopia ka cabsanayaan bal fiir ilaa baan ku dharshay libaax baa xagga taagan oo kale garab aan ku noqday adina dawacad ka cabsanaysa oo leedahay libaaxa u taga dawacadaas dhaxday u qabsanayo cuni Ethiopia iyo waxyaabahan kala laga cabsanaya wuxuu yiri nin wasiir ah oo Soomaali ah annaga idin kala dhaxgelinaa idinka iyo Ukraine dibka idan haysto Crimea iska gadir rabaa reer galbeed marka galbeedkan waxay ku falayaan maray ay ka tashteen United Nations ka ayaa waxa lagu waxa hadlahay Ahmadinejad kaasi reer galbeed baxeen ilaa yahuud baa iyaga maamushay iyaga oo protest bay ku baxeen wadamada adduunka saddexaad iyo adduunka kale oo dhanba waxay leeyihiin labada quwadooda is haystaan xag iyo xagabo anaga aan fiirin oo wixii faa'iido nooga soo baxdan aragno kii Soomaaliga uu raacay markii adeed waftiga ninka hogaaminayo Soomaaliga asagana cadaankii u dhirfay Ahmadinejad ilaa wuxuu yiraahday yahuud baan duqeynayay iyo asagana raacay oo yiraahday way gardaran yihiin garab baan u nahay wal daafaanimada heerkii gaartay fiiri oo wada gartay Soomaa marka Soomaaligu
soomaaligu dantiisa ma garanayo wuxuu mooday camiilnimadii buu mooday inay tahay meherad lagu tartamo la daba socdo laga meel gaaro Soomaaliya waxaan kula talin lahaa doorashadiina sameeya dadka fiicnaa oo aqoonta fiican lahaa wadaniyadana ay ku jirtay oo wadankan horey u wada lahaa oo khayraadkiina soo saari lahaa oo qaniimadan idiga badan idinkoo adduunka oo dhanba dadka wadanka ugu qiimo badan aan noqon lahaydeen istaraatiijiyadan haysataan dadka soo saara wadankanna badbaadiya هلا بدبادي وطن أنا ليه وحكون شيء إثيوبيا عدو سجرين بيت ما أنت لكن ولا أديك كل هذا الشيء بجوجا أو كل كالي عد كذا قصو كالي كان كنتم كنوا عيدا كان كوقر كان كنتم كنوا عن وزارة كستوجيبه أنا قاعد في بقول كيف تضمن هاي population كينيا تقول أنت تكتمانت كينيا أذن وجود تجينين سومالي ما ضحي مجرد حافظ كستو حافظها أو قيمة بدنا ودنك سومالي بكب بحده قومية دوحيين ما أنت مركز سلوا يقول لبعض يجليان تستعادها تمجليان مركز أفريقيا كودنك الله فيري إسبدل كوحود عي صدم كسنة أو صور دافني بود عي لبعضن يو سديت سنة ما أنا كان يقول لي دورني 1992 ومع ذلك اللي يقول دورني سجال الله وطن صومالي مش أنا اللي قد دورنا ودجانك يقحو تيجي أنتي لا يحبط صار الرع يقول لي يا ميت كذا اللي جوي مالتي دور شلون 29th December 1992 وأنا أنت كنت أنا والله دورتي ولي لي ده ولي حتى أنا بعرف أقول اللي يقول دارين يعني ميت كذا سوقف اسمه البادعي سياسة دي بانقلني دولة laga hor imaado waxa loo arki jiray inay tahay meesha Soomaaliya lagu baabin lahaa dawladda baan ku hor imaanay xuquuqdaanada oo dhan baan helnay wali waan wadnaa ilaa hadda BB aadan iyo waxaan aan wadnaa oo dhan xuquuqdaanada baan ka soo dhaxsaarayna wadda Soomaaliyeed oo Itoobiya joogto wadanka ha qabsadaan inna kama hortaagno Soomaaliya ha hagaajiyaan arintooda بدل ميلا كله كم مرة يصير لهاين أو تجري إيو عرب إيو عدان إيو ده بس عن لهاين إيجا هايستان إيجا شغال الله نقول لها دون كده نقول لها وروحنا الله ينتصر guud ahaan daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa wareysiga gaarka aan uga hadlaynay xaaladda dalka Itoobiya ka taagan iyo saameynta ay ku yeelan karto geeska Afrika sidoo kale doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaan uga hadalnay waxaan u mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga wareysigan ku soo bixiyay gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka dalkan Kenya mudane Faarax Macalin oo wareysigan inaga qayb galay dhanka farsamada iyo kaamiradu waa Naasir Macalin iyo Ismahaan aniga Cabdullaahi Axmed aan idin socodsiinayay dib intaan u kulmi doono wareysigan lamida dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah fure adeega Jeeb oo garaac xidig 810 afar gees kadibna geli biinka